السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دواد حديث كمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. متفق عليه. نبي صلى الله عليه وسلم حديث كان وحنو بريا سدح علامات أو كمد علاماتها منافقين. إذا حدث كذب، منافق waxaa lagu gartaa hadduu sheekeynayo waa mid been ku sheekeeya, waa mid beenaala ah. wa idaa wacada akhlafa, hadduu wax yabooho wax ballan qaado wuu ka baxaa. wa idaa tumina khaana, haddii la aaminan wuu khiyaano falaa, oo wixii lagu aamino looguma imaado. qofka munaafiqa ah oo khiyaano sameeya wixii ayuu khiyaamaa. calaamado badan ayay leeyihiin munaafiqiinta iyo waxyaabo badan lagu garto, laakiin saddexdan qodob waxay ka mid yihiin waxyaabaha runtii aanan laga weyn garin qofka munaafiqa ah oo qasab ay tahay in laga helaa. nabiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu nooga digayaa inaan ka digtoonaano dadkaas, ayuu noo sheegayaa, na barayaa calaamadahooda si aan iskaga ilaalino, uga garanno dadka kale, maadaama aysan la mid ahayn. hadduu sheekeynayo been ayuu ku sheekeynayaa. haddii wax uu yabooho, tusaale masaajid ayuu joogaa, wuxuu leeyahay aniga ayaa waxaan qabanaya insha allahu tacaala, si dadku arkaan oo dadka isku tusiyo. aniga ayaa intaan gadaya, aniga ayaa masaajidka intaan u qabanayo. kadibna waxaa waaye wuu ka baxayaa ballankii, oo dantow kalaa waxay ahayd in la arka keliya. haddii ammaano guud loo dhiibtana sidoo kale khiyaano ayuu samaynayaa. marka rasuulka wuuna barayaa si aan uga garanno dadka kale. wax walba oo lagu aamino qofkaas khiyaano ayuu kula dhaqaaqayaa, oo wixii oo sidooda ah ama siduu u ballan qaaday ah looguma imaanayo. marka insha allahu tacaala allah naga badbaadiyo calaamadaha munaafiqiinta. munaafiqnimadu waa wax aad iyo aad u xun runtii. qof walba oo maanta dunida joogta nafteeda in uu baqdo waajib ayay ku tahay munaafiqnimada, sababtoo ah waa la wajiil munaafiq hadaa maqashid. waa qof aanan maaragtay muslimna ahayn, gaalna ahayn, oo macnaa wada dhaxa ku dhuntay. ilaahi subxana wa tacala wuxuu u ballan qaaday cadaab ka daran kan gaalada inuu marsiin doono, oo weliba uu yidhi ina almunaafiqiina fi daraki alasfali min annaar. naarta meesha ugu hooseyso in la geyn doono munaafiqiintu ilaahay subxana wa tacaala ballan qaaday. marka allah naga badbaadiyo calaamadda munaafiqiinta, allah naga ilaaliyo. walaal sii gaarsiiya xadiidkan walaalaha kale, uga dig calaamadda munaafiqnimada inay iska ilaaliyaan. ciddaa ku taqaanid iyo ciddada ku aqoonba intaba ugana dig maaragtay in badan, sababtoo waa wax aad iyo aad u xun munaafiqnimada runtii. ilaahay subxana wa tacaala naga badbaadiyo dhammaanteen. sii gaarsiiya walaalaha kale ee kusoo biir kanaalka xasanaad dadan kusoo biirin insha allahu tacaala, oo subscribe-ta iyo like-ta ka hilmaamin insha allahu tacaala, si anagana u badino insha allah wacyigelinta iyo axaadiista aan soo gudbinayno. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.